waa wadada isku xidhaysa degmooyinka Kalabaydh iyo Laascaanood ee gobolka Sool oo dhismaheedu si xawli ah u socdo. Wadadan oo dhan 31 kiiloomitir ayaa iminka gacanta lagu hayaa 10 kiiloomitir oo horeeyay, waxaana dhisaysa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bulshada deegaanka oo iskaashanaya. Marxalado kala duwan ay soo martay wadadani. Hadda waxa ay maraysaa meel fiican iyadoo dawladdu u soo dirtay gaadiid iyo howlwadeeno dhisaya. waxaana wadadani ahayd markii hore mid ay bulshada deegaanku dhibaato badan kala kulmi jireen, baahi weyn ay u qabeen dhismaheeda. Badhasabka gobolka Sool maayirka degmada Laascaanood iyo taliyaha qaybta booliska ayaa maanta kormeer kuurgal ah ku tagay wadadaasi, waxaana ka warbixiyay meesha ay wadadu marayso gudoomiyaha gudida dhisaysa wadadaasi Maxamed Cali Maxamed, cuqaasha iyo ganacsatada deegaanka. waa wado runtii u tusaale gobolka ama gobolada tan khaasatan gobolada bariga waxay u tahan isleenahay tusaalihii hadii ay fahmaan halka buurta aad aragtaan ishiina aad ku aragtaan ninka wada raba inuu ka saaro hawsha uu la kulmayo iyo tacabka uu baahan yahay. mar labaad jaaliyad guda joog bulsho weynta gobolka say uga qayb qaadatay ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa. waxaan u mahadcelinaynaa inaan marnaba ilaabi karin dawladda Soomaaliland madaxweynuhu ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka khaasatan wasiirka jidadka iyo horumarinta jidadka iyo gaadiidka Cabdullaahi Abubakar Cismaan oo hawsha tan hadda halka ka socota runtii haduusan isagu fududayn ama uusan hawshaas soo geysan gacanta inta leeg ay noo suura gasheen. wasiirku agabka aad arkaysaan ee cagafiyo iyo isku rogooyin leh iyo injineero iyo agaasimayaashii gaadiidka iyo shidaal dhabbada isaga bishaawaday. insha Allah waxaan rajaynaynaa inta dambana hadii alla midla dhamaadkeeda inuu u taagnaan doono. isna waa u mahadcelinaynaa dhammaan wasiirka iyo madaxweynaha iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland in ay weli wadadii ay u baahan tahay gacan haday jaaliyadii hore wax uga qayb qaadatay iyo gudaha dadka gudaha khaasatan deegaanka iyo guud ahaan dadka ehelka ah oo gobolka Sool ka soo jeedaba. runtii waxa fiicnaan lahayd in marba wada la dhiso mid la kiciyo oo marka taa laga soo jeestada ta kale laga qayb galo. mas'uuliyiin iyo injineero ka socday xukuumadda oo dhisaya wadadaasi ayaa ka warbixiyay halka ay wax u marayaan. halkan aynu taaganahay maanta waa wadada Kalabaydh Laascaanood oo aanu gacanta ku hayno qoladayada ka socota hay'adda wadooyinka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. halkan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku wuxuu wadada tan ugu deeqay gawaari gaadiid ka kooban 6 gaari cagafyo gareedaro iyo iskaafeertaro shidaal. annaguna waxaanu ahayn howlwadeenadii gacanta ku hayay ee ka socday wakaaladda. shaqo aad iyo aad u fiican baan ka qabanay intii aanu joognay oo ah shaqo aad u adag baan ka qabanay walow kaana ay jireen maxay ahayd raxmadii eebe iyo carrado aad iyo aad nooga fogeyd oo nagu ahayd dhibaato nagu ahayd oo meel fog aan ka soo qaadanay. isku duwaha wasaaradda gaadiidka ee gobolka Sool Shaakir Mustafa, taliyaha qaybta booliska Axmed Cabdillaahi Cabdi, maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale iyo badhasabka gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jeer ayaa ku dheeraaday ahmiyadda wadadani. runtii waxa laami u diyaarsan oo la diyaariyay oo community-gu ay diyaariyeen marka hore 4 kiiloomitir iminkana 30 cisho ee bisha Ramadaan ee shaqaalaha wadada Ceerigaabo ay iminka halkan soo gaareen waxay dhiseen 10 kiiloomitir bay u diyaariyeen laamiya. runtii waan u mahadcelinayaa shaqaalaha hay'adda RDA waan bogaadinayaa shaqada wacan ay qabteen. kulley maanta waa maalin weyn oo gaadiidkii la soo diray iyo hawshii la qabtay way muuqanaysaa. waayo maalintii hore maray maanta wax weyn baa u dhaxeeya oo taayir baan maalinta haynay laakiin wadaanu maanta marayna. ilaahay waxaan ka baryaa inta hadhan inuu dhameystiro awoodda isaga iska leh. waan u hambalyeeynaa cid kasta oo wadadan gacan ka geystay oo ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi, gudoomiyaha aqalka wakiilada Baasha Maxamed Faarax, wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Cabdullaahi Abubakar oo runtii muxuu ahaa wadooyinka dalka oo dhan xil weyn iska saaray. qodobka waxaan kaloo mahadnaqayaa ciidanka amniga ee halkan har iyo habeen ka shaqeeya. intaan jidka soo soconay waxa ku soo dhawaaday calaamado ama foostooyin la geliyay ama sees la geliyay. baaqan halka ugu daran waxa weeye maalinta ciidda la tukado maalintii ka dambaysa inta been la dumin doono nin oo lacag dambe iskaga qasaarin
ninkii hadda ursan tahay inuu sii dumi cidba farxad gaar dareemaysayo kulay anagu farxad gaar dareemeynaa wadadan fikirkeeda anagu qof ahaan aniga iska lahaa maalintii ugu horeysay markaan Iftaax Umar Faruur iyo garaadka guud ee dhulbahante aan la wadaagay iyo Cabdikarin Dhowkir way la yaabanaayeen waxay lahaayeen ma wadan samaysan karnaa waxaan ku anaga madaxweynaha u gudbinay madaxweynaha markaan u geynayna runtii si wacan buu nooga aqbalay haddii dawladda iyo shacabku iskaashadaan wax badan ba qabsoomay runtii dawladdu horeba ballan qaaday aad waxaan ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda jidadka gaadiidka oo meesha inoo dhagax dhigay ilaa iyo maantana Cabdullaahi Abubakar u taagan in uu gacanta ku hayo wax badan ka qabto mar labaad iyo mar saddexaad waxaan mahadcelinayaa gudida iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo dadka deegaanka wadadan gacanta ku hayay wasaaradda jidadka iyo wasaaradda gaadiidka jidadka mahadcelinaya wasiirkeeda Cabdullaahi Abubakar madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi oo hiil mar walba in wadooyinku infrastructure-ku ay Soomaaliland ka hirgalaan ayaan isagana aad ugu mahadcelinayaa beesha aan mahadcelinayaa garaajaan garaad cali baan uga mahadcelinayaa halkan isaguna runtii oo horumarka deegaankan u sameeyay in guddi beesha ka tirsan ay sameeyso liibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland la saacanood